الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد دولميديت ميديا جروب أتوقع برتين مرولبا إنه إذن سو تبيه وحيابه كسابسن دولميجا sidoo kale mar walibana aanan ka gaabinin inaan soo tabino dadka aan isleenahay waa dhibanayaal oo u baahan in la gaarsiiyo codkooda mas'uuliyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed intaba barnaamijkeena caawa uu ka duwan yahay kii hore waxaa jiro dhibane lagu magacaabo Ali Abdi Samad oo ku sugan wadanka Pakistan gaar ahaan magaalada Rawalpindi isla markaana wax ka barto Rawalpindi Medical College Ali Abdi Samad waa arday Soomaaliyeed aan isleenahay wax buu tari doonaa wadanka Soomaaliya markii uu dhameysto waxbarashadiisa waa dhakhtarkii daaweyn lahaa ubadkeena iyo anaga nafsad ahaanteenaba waa wixii Soomaaliyeed waa dadka aan isleenahay kaalin muhiim ah bay ugu jiraan bulshada Soomaaliyeed marka waxaan jeclaysanay inaan Ali Abdi Samad aan soo gaarsiino codkiisa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed iyo dhammaan mas'uuliyiinta intaba Ali Abdi Samad waa sidaan hore ku sheegnay wuxuu dhiban u yahay dhaawac ka soo gaaray gaas oo kula qarxay hooyi oo ka deganaa magaaladaas ma hubno inuu yahay jaamacadda gudaheeda iyo hooyiga ugu yaalo jaamacadda dibadeeda marka insha Allah waxaan jeclaysanay inaan codkiisa codkeena aan ku taageerno si uu ibkiisa iyo xanuunka hay aan la qaybsano isla markaasna bulshooyinka Soomaaliyeed iyo dhammaan mas'uuliyiintaba ay gaaraan Ali Abdi Samad oo si muuqaal ah codkiisa u soo gaarsiiyay bulshooyinka Soomaaliyeed isla markaana cabirayay dhibka iyo dhaawaca ku yaalo iyo sida uu ku soo gaaray hadaladiisii waxa kamid ah bismillahir rahmanir rahim wa ya dhamanti wa salaamaya wa anigo Ali Abdi Samad waxaan kamid ahay intaqaan ardayda wax ka barata jaamacadda Rawalpindi Medical College magaalada Rawalpindi walaalayaal ardaygaasaan ahay waxaa igu dhacay shil baa igu dhacay qolkii ayaa gaas u qorxay marka dhibka u jeedaan ay gaaray gacmaha labada gacmood iyo wajiga iyo intaqaana qoorta muddo hadda kama ku jira sida aad maqasheen Ali Abdi Samad runtii waxaan leenahay marka hore ilaahay caafimaad degdeg Allah siiyo dhibkiisana ilaahay ha ugu dhigo dhib fudud runtii aad baan ugu xumahay dhibka soo gaaray ilaahayna waxaan ugu baryaynaa inuu ilaahay ka dhigo dhaawiciisa mid fudud isla markaana uu ka ajirsiyo maxaa yeelay wuxuu ahaa qof wax baranayay qofka markuu wax baranayana runtii waa النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة قفكي ودخاضه اسلا مركز أسيقو علم كرادينايا أما وحصو برانايا runtii ilaahay wuxuu u saqiraa ama u sahlaa wadadii uu ku tagi lahaa jannada runtii waxaan dhigi karnaa qof ku taagan inuu ahaa cibaado cilmiga barashadiisa waa cibaado isla markaana wuxuu rajeynayay ama uu hamiga uu ku hayay inuu wax tari doono bulshooyinka Soomaaliyeed insha Allah ilaahay waxaan ugu baryaynaa caafimaad degdeg ah dhammaan muslimiinta Soomaaliyeed ama guud ahaan Soomaaliya meel walba ku sugan tahayna waxaan ka codsanaynaa in ay walaalkeena ay u duceeyaan inuu ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo waxyaabaha aan run ahaantii aan ka xumaanay hadii aan nahay Dulmidid Media Group isla markaana aan isdhihi karno bulshooyinka Soomaaliyeed arintaas way dareemi kartaa Ali waxa kamid ah hadaladii uu sheegay maadaama uu yahay qof Soomaaliyeed isla markaana dhibana ah oo waxna ka baranayay jaamacadda ku taalo wadankaasi Pakistan runtii wadanka Pakistan Soomaaliya waxay ku leedahay safaarad oo dawladdu waxay u dirtay mas'uul ku sugan halkaas si uu wax uga qabto jaaliyada ku sugan wadankaas Ali markuu soo gaaray dhaawaca iyo ama dhibkan runtii waa meesha kaliya uu u carari karo ama uu dhibkiisa gaarsiin karo ama uu ka sugayo in wax loo qabto ama loo gargaaro waxay ahayd safaaradda Soomaaliya ee ku taalo Islamabad ee wadanka Pakistan sidaan ognahayna safaaraddaas waxaa mas'uulka ah ama mas'uulka ugu sareeyo ama safiiradda aan dhihi karno waa gabadha aan ku magacaaweyno Khadija Al-Makhzumi wuxuu noo sheegay Ali sidoo afkiisa uu nooga cadeeyay ama videoga aad ka arki doontaan inuu la xiriiray safiiradda Khadija Al-Makhzumi isla markaasna oo kala hadlay dhibka soo gaaray ايضا اي كدغيستay ay tiri
run ahaantii waan dareemnay dhibka kusoo gaaray waan maqalnay waana la soconaa insha allah arrintaadana waxaan u gudbinayaa mas-uuliyiinta sare ee dowladda si wax lagu qabto waana isugu soo laabanaynaa laakiin taasi waxay dhaxashay in uu cali cabdisamed oo ka warsugo jawaab celintii khadiija almaqzuumi waxay qaadatay isbuuc ama 6 maalmood sida asiga uu sheegay markii uu raadiyeyna ama uu isku dayay inuu la xiriiro qadka telefoonka waxaa u suurtageli weysay inuu la hadlo ama ay telefonkaba ay ka qabato waa bini aadan wax kastaa dhici karo ma xugmin karno sababta ay telefoonka ay ugu qaban weysay ama ay ugu soo celin weysay laftad ahaanteeda sidoo kale cali wuxuu isku dayay yani isku dayo badan oo sida ka muuqata videoga wuxuu sameeyey asigoo ku jiro muuqaal toos ah inuu iyadana uu la xiriiro ama uu waco laakiin waxyaabaha laga xumaan karo oo qof kasta oo Soomaali ah oo ku sugan wadanka banaankiisa oo dareemayo waxaa ka mid ah sida cali loogu dhaqmay qadka telefoonka maxaa yeelay mar waliba isku dayo inuu waco ama uu la xiriiro waxaa dhacaysay in telefoonka oo lagu jaro ama telefoonkiisaba uusan gudbin runaantii taas ayaa asigan ka keentay inuu la soo hadlo dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed codkiisana uu soo gaarsiiyo cali runaantii aad baan ugu mahadcelinayaa qaabka wanaagsan iyo sida asluubta leh oo la hadlay bulshooyinka Soomaaliyeed ama codkiisa iyo dareenkiisa uu soo gudbiyay maxaa yeelay cali markuu dhibkan soo gaarayay sida uu nagu sheegay waxay ahayd waxaa laga joogaa 20 maalmood oo 3 isbuuc meelahaas cali wuu awooday isla maalintii dhibkaas ay ku dhaceen inuu social media soo fadhiisto oo dhibkiisa uu soo gudbiyo laakiin marka hore wuxuu doorbiday inuu la hadlo qofka mas'uulka ka ah iyo safaaradda uu ku leeyahay wadankaasi maxaa yeelay waxaan ognahay safaarad waliba oo ku taalo dalka waxay guri iyo hoy ay u tahay jaaliyada ku nool dalkaas marka cali markuu damcay inuu gurigiisa u cararo ama kaalmo weydiisto mas'uulkii halkaas joogi waxaa ka qabsatay sida aan hadda arkayno isla markaana asigana wuxuu doorbiday inuu la soo hadlo dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed anaga ka dulmi deep media group ahaanna waxaan jeclaysanay inaan codkiisa aan sii gaarsiino meel waliba gaari karo ha ahaato shacabka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta islaamahay yani waxay mas'uul iyo waxa ka yihiin ummadda Soomaaliyeed aan si dhamaystirno cali iyo hadaladii oo kasoo duubay dhibka iyo dhaawaca soo gaaray laakiin bilna waxaan ku jiraa istaafka jaamacadeyda walaalayaal waxaan sababta muuqaalkan u duubayo aan u hadlayo ayaa waxay tahay in mataqaanaa aan dareemayo in aan maaragtay dhibkaas markii ugu dhacay kabacdi loo baahday aniguna aan shakhsiyan ugu baahday safaaradaydii oo mataqaanaa taasoo keentay inaan la sameeyo xiriir safiiradii Soomaaliyeed ee magaalada wadanka Pakistan Islamabad teleefankayga markii u horeysay waa iga qabatay wayna la hadashaa waxayna igu tiri waan maqlay dhibkaaga waana ku garanayaa gaaraan ka xaynayaa driven garanayaa marka aan driven garanayaa waxay tiri anaa kugu soo celinaya kahay muddo laga joogaa hadda ilaa 5 maalin 6 maalin intaasoo dhan ma dhicin inay hal mar ay qabato si mataqaanaa si isku xigto consecutive ayay mataqaanaa teleefankayga u jaraysaa iguma dhageysanaysaa aniguna baahidan u qabay waa baahi wali taagan oo mataqaanaa imaaraatay rabay aan u baahanahay in la iga caawiyo saas daraadeed safiiradda iyo mataqaanaa rag la shaqeeya ayuu mid kamid ah waxaan ii muuqata inaysan ahayn dad mataqaanaa matali karana ummadda Soomaaliyeed wax ka barata wadanka Pakistan aad u faraha badan walaalayaal cawashada maanta anigu soo gudbinaya maaha mid maanta bilaawatay ummad badan baa hore u qaylisay oo badanna way qaylin doonaan dhibkuna intaas waa ka weyn yahay saas daraadeed ummadda waxaan idiin sheegayaa dhammaantiin waxaan halkaan doonayaa inaan uga diro codsi madaxda dowladda Soomaaliyeed ay u horeeyaan ra'iisul wasaare Khayre madaxweynaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo iyagu ah cidda ay qusayso safiirada waxaan leeyahay walaalayaal haddaad doonaysaan in idin xaqiijiyo wicitaanka
hadeertaan baan ku wacayaa hortii hadeertaan baan ku wacayaa hortiina hadeertaan hortiina yaan ku wacayaa waan arki kartaa si automaatiga ayaa loo jarayaa taleefanka idinka u jeeda oo arki kartaan saas daraadeed waxaan idiin sheegayaa qofka noocaasa dulmiga jira iyo mataqaanaa ku-tagrifalka awoodeed ma ahan wax macquula mana ahan mataqaanaa waxaan maaragtay ummadda Soomaaliyeed lagu hogaamin karo dowladda nabad iyo nolol ayada ayaana bartay isla xisaabtanka ayada ayaana bartay mataqaanaa in accountability-ga iyo transparency-ga ayada ayaan mataqaanaa natiri hadla dhibkiina sheegta saas daraadeed dilo iyo rajaan ka qabno awgeed ayaa waxay keentay inaan ugu hadlo ummadda Soomaaliyeed dhibkuna intaan waa ka fara badan yahay waana ka waxaysan yahay waana saas daraadeed waxaan leeyahay dad badan baa jira oo kor u ooyaya hoos u ooyaya waxa dhibafka mataqaanaa ka mid ah aan sheeganayno in maaragtay lacagoon laga qaatay anagoo imtixaan galnay oo qualification-koodii iyo howlaheedii leh in mataqaanaa lacagna laga qaatay in mataqaanaa isha maaragtay in la weydiiyo oo ardayda qaar loogu hanjabo waa idin ceelinaynaa waddan ka saarana haddiina lacagta bixinin idinna ka yeelin inaan loo sinayn safaaradda inaan shaqada loo sinayn inaan aragtida mataqaanaa xitaa mataqaanaa in charge studentiga aan la arki karin in laga yaabo adoo wax yar u baahan in safaaradda isaga daba noqoto 5 maalin 6 maalin saas daraadeed walaalayaal qabyaalad iyo qurunna ma ka marna saas daraadeed madaxda dowladda waxaan ka codsanayaa arrinta ayada ra'iisul wasaare khayr u horeeyo in laga dulqaado dulmigan iyo culayskan safaaraddu ay nagu hayso iyo awood sheegashada mataqaanaa ka muuqata safiiradda iyo mataqaanaa iyo shaqa la'aanta shaqa xumada saas daraadeed mudane ra'iisul wasaare madaxweyne iyo wasiirka waxaan leeyahay waxaan u baahannahay gurmadkiina waxaan u baahannahay inaad mataqaanaa hawshaas wax naga qabataan waxaan u baahannahay safiiraddaas inaad naga bedeshaan aniga diyaar ayaan waxaan u ahay wax kastoo caddeeyo in diiraan keeno inaan keeno arday mataqaanaa la dhibaateeyey kuwa lacaga laga qaatay kuwa hadda loo hanjabayo kuwa leeyahay waan kaysanaynaa waxbarashadiinii ayagoo jaamacadahoodii jooga kuwa mataqaanaa intaasoo $1,000 laga qaatay anigana u horeeya waxaan codsanayaa dowladda Soomaaliya anigan caddeyntii baan keenayaa in markuu horeyso aan ugu horeeyo ardayga u horeeya aan noqdo oo maaragtay lacagtiisii iyo hantidiis safaaradda ka booftay runtii waa wax aada laaga xumaado waana wax dareen ka taabanayo qof kastoo Soomaali ah oo ka danqan karo yani cali sida uu u hadlayo iyo bulshada kaalinta uu kaga jiro marka insha Allah waxaan rajeynaa qof walba Soomaaliyeed arrintan inuu gaarsiiyo qof kastoo Soomaali ah iyo mas'uulka oo isleeyahay arrintan wax buu ka qaban karaa anaga ma si gaar ah uma bartilmaameedsanayno ama ma u target garaysanayno mas'uuliyiinta ku sugan safaaradda Pakistan laakiin waxaan markastaba aan support gareynaynaa ama aan rabnaa inaan kor u qaadno cali dhibkiisa ay dhibaatada soo gaartay runtii Allah baa garanayo Khadija al-Makhzumi oo ah mas'uulka ugu sareeyo safaaradda dalka Pakistan waxyaabaha ay kala aamusan tahay ilaa intaan abaysan ugu soo celinin marka waa wax waliba waa suuragal marka Khadijana waxaan rajaynaynaa insha Allah haddii oo codkeena gaaro ama uu gaaro cali codkiisa in ay jawaab degdeg ah ay arrintaas ay ka celiso ay la xiriirto dhibanahaas ku sugan halkaas si oo asigana oo u helo ama oo u dareemo macaanka ay leedahay dowladnimada iyo qofka mas'uulka ka ah laftirkiisana uu u dareemo inuu yahay qofkan qof asiga matala oo meesha u joogo arrintaas cali kaliya ma aha waxaa jiro dhibanayaal aad u fara badan oo isla markaas ayagana ah in wax looga qabto wadanka gudihiisa iyo dibadiisa intaba qaar baa ku jira xabsiyada Soomaaliyeed aanan ognahay inay u xiran yihiin waxyaabo aan macno lahayn qaar baan 3 sano iyo 2 sano u xiran lacag $10 ah marka waxa soo dhan waa mas'uuliyad daro iyo dhibaatooyinka jira ay ka mid tahay marka dawladda waxaan si gaar ah uga codsanaynaa in waxyaabaha noocaas ah ee isha ay ku hayso mas'uuliyiinta ama dadka ay u magacaabayso oo bulshadana ay ugu dhigayso mas'uul inay dabagal ay ku sameyso yani isla xisaabtan dhab ah sida ay hore ay loogu balan qaadeen mas'uuliyiinta ugu sareyso dawladda Soomaaliya ay yiraahdeen dawladdan waa dawladda isla xisaabtanka
marka qof waliba hawsha iyo shaqada uu u hayo ummadda Soomaaliyeed in lagu la xisaabtamo isla markaana la dhageysto baahida iyo cabashada wadan dalka ummadda Soomaaliyeed meel waliba ay ku sugan yihiin haday yihiin kuwa ku sugan dalka gudihiisa iyo dibadiisa intaba marka insha Allah wax waliba oo ku saabsan ama ka soo kordho Ali Cabdi Samad iyo dhibanayaal waliba aan isleenahay codkooda wuxuu u baahan yihiin in aan gaarsiino dhamaan shacabka Soomaaliyeed insha Allah waa sidaan hore idinku ballan qaadnay Dulmidiid Media Group mar waliba wuxuu diyaar u yahay inuu arintaas oo dabagal oo ku sameeyo isla markaana oo codkeena aan ku taageerno qof kasta oo dhibana ah ama dulmana ah sidoo kale qof waliba oo asigana wax dulmay kama gaabinayno inaan wacyigelin iyo talo aan u soo jeedinayno isla markaana uu noqdo qof Ilaahay ugu cabsado wax waliba oo sameynayo mas'uuliyiinta si gaar ah aan la hadlo qof waliba mas'uul ah waxa doontid mas'uulka oo qofka ugu sareeyo talada dalka Soomaaliya ilaa iyo qofka ugu hooseeyo ama dhamaan qof kasta oo shacab Soomaali ah runtii waxa mas'uul ka tahay wixii lagu idmaday ama lagu aaminay marka mas'uuliyadaada iyo hawsha lagu dhiibay ha noqoto mid Ilaahay ugu dhawaanaysid isla markaana rajaynaysid aakhiro inaad xasanaad iyo wanaag aad ku heshid shacabka Soomaaliyeedna aad wax ugu qabanaysid nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyatihi qof kasta oo idinka mid ah waa mas'uul qof kastana wuxuu mas'uul ka yahay wixii la raacsiiyay marka insha Allah nas'al Allah al-azim inuu Ilaahay mas'uuliyadda iyo waxyaabaha anaga aan damaana qaadnay inuu Ilaahay noo saqiro noo cirabta ahaato barnaamijkeena caawo oo aan ku soo qaadanay dhibana Ali Cabdi Samad oo ku sugan magaalada Rawalpindi ee dalka Pakistan isla markaana arday wax ka barta Rawalpindi Medical College intaan ayaan ku soo gabagabeynaa waxaa idin la socodsiinayay anigoo ah Isxaaq Ibrahim waxaa barnaamijkan mar waliba duubistiisa iyo deesmadiisa iyo farsamada intaba ku hoolan Maxamed Nuur Uthman Maxamed Nuur Suley insha Allah barnaamijkan keena xiga waxaan idinka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh